2020 sanadood ee maamulka Puntland uu jiray waxaa loo arkayay inay caqabado aad u xoogan oo dhanka horumarka ay hortaagnaayeen iyadoo taa kala mid ahaa maamulada kale gaamray ee dalka sida Somaliland oo kale ee gabi ahaanba aan lagu dhiiran si aad u xoogan looga shaqeynin horumarinta dadka hase yeeshee Puntland iyo Somaliland waxay ku kala duwanaayeen in hogaamiyaasha Puntland ahaayeen kuwa marmarka ka dambaysa u hanqal taagaya dhinaca magaalada Muqdisho iyo in ay hogaanka iyo majaraha u qabtaan dawladnimo la helo oo Soomaaliyeed taasoo la aaminsan yahay inay waqti badan ka banjarisay kana la yacday dadka reer Puntland walow ay dad badan ku amaaneen Puntland doonisteeda dawlad adag oo Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda haddana si kale dadka reer Puntland taasi ma aysan jeclaysan waxayna aalaaba ay aaminsanayeen in deegaanadooda oo kamid ah kuwa ugu qanisan dalka Soomaaliyeed aan marnaba loo gundadegin loona soo jeesan la yaab kale ka soconaya magaalada Boosaaso ee Marakan soo bandhigay sida maamulka Puntland gaar ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda uu ku dhawaaqay mashaariicdii ugu ballaadheed ee ka dhacda magaalada Soomaaliyeed hal mar ayaa laga dhawaajiyay inay ka qabsoomi doonto magaalada Boosaaso taasoo durba ka bilaabatay 31 wado ayuu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda inay noqon doonto kuwa laga iiba furo magaalada Boosaaso balse aan horta marka horeysa dib kugu yar celiyo sooyaalka magaalada Boosaaso tan iyo burburkii waxa ay caan ku noqotay burburkii dalka Soomaaliyeed markii ay dawladii gabi ahba jilbaha dhulka loo dhigay 1991 waxaa jiray masiibooyin aad u xoogan oo wadanka ka dhacay marka laga hadlayo dekedaha dalka ee Soomaaliyeed ee dawladii ay ka tagtay waxay hayeen afar dhinaca waqooyi waxa ku yaalay Berbera oo istiraatiiji ah dhinaca waqooyi barina waxa ku yaalay Boosaaso oo iyaduna istiraatiiji kala Muqdishona waxa ku yaalay tii ugu weyneed ee xaruntii la yaab kala ahayd iyo waliba Kismaayo gabi ahaanba labada dekedood ee Kismaayo iyo Muqdisho way xidhmeen waxaana ugu sii darnay tan magaalada Muqdisho oo iyadu ahayd tii muddadii ugu dheereyd u xidhnayd isqabqabsi ku aadan cidda xukumi doonta kadib markii ay dalka ay farihiisa ay ka baxeen dhibaatooyin weyn markii ay qabsadeen hogaamiyaashii wadaadadii maxkamadaha ayaa dib loo furay 2006 hase yeeshee intii ka horeysay oo dhan muddo 16 sano oo dekada way xidhnay magaalada Boosaaso waxaa loo yaqaanaa Caymiya Ititibiya isku soo dhaweeya isu keena nooleeya iyo iftiinka ummadda Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha dalka ku dhaqna ila iyo bariga oo laga qoodi jiray magaalada Boosaaso waxay noqotay xarun ganacsi oo casri ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan isugu yimaadaan iyadoo oo dhaqaalaha magaaladooda marka dayso uu ahaa mid afarta karjaha u kala socda ila iyo deegaanada Soomaali galbeed ee Soomaaliya laga haysto ee dhulka Soomaalida Itoobiya maanta loo yaqaano ay qoodinaysay hase yeeshee magaalada marka aad si dhaba u eegto gaar ahaan dadka yaqaanada la sheekaysato waxa kuma noqon magaalo ciriiriya iswada dur saaran aan toon balan lahayn gabi ahaanba faadkeeda iyo amnigeeduba uu aad u liito la isugu soo galay oo halaq mareena ay noqoto taasina gabi ahaanba waxay kala mid noqotay magaalooyinka kale hase yeeshee iyada waxa u dheereed in ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Geeska Afrika Arab iyo Cajab ay isku keentay Puntland gabi ahaanba weligeed leeyahay inay cashuur ka qaadato magaalada mooyaane weli si dhaba gumay daadegin barwaaqada magaalada taala iyo gobolka oo ah kan ugu qanisan ee wadanka Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo bari ma aha kaliya bari inuu dalka ugu weyn yahay waxa la aaminsan yahay in imkaaniyaadka dhinaca dhaqaalaha iyo waxa loo yaqaan rare minerals ama macduurka waxa loo yaqaan macdanta ee caalamka ay ku jirto tani gabi ahaanba qorshayaashan dagaal ee halka ka soconaya waa ka qayb laakiin se maadaama xasaasiyadooda leeyihiin Marakan Soomaaliduna ay yihiin dadka marka wax fahma ay ushu dushooda ku dhacdo waqtigeeda waayaha ayaan u day doonaa dhowr jeer sawaayday tibaaxay balse aan eego marka u horeysay maamulka Puntland ee uu hogaaminayay Saciid Cabdilaahi Deni oo 5 sanadood ee madaxweynaadkiisa koobaad ku mashquulsanaa in uu magaalada Muqdisho mud ka soo dhaxo dagaalkii farmaajo iyo dawladii Soomaaliya u tafaxaytay 2 sanadood ee u horeeyay xukunkiisii hadeerto wuxuu eegay inuu mid dhal noqday waliba sanadkii hadeerto ugu sii dhameeyay Saciid Cabdilaahi Deni wuxuu yaqiinsaday in Puntland ka badan tahay haddii uu si dhaba u imaansado isla markaana barwaaqada halkan taala ay u baahan tahay in amniga la sugo marka koobaad Boosaaso waxa ku noolaa kooxo kala duwan oo ka ganacsanayay dhiigga ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Boosaaso waxay dhibaato aad u xooggan ku hayeen amniga iyo waliba wadajirka ummadda waxay si aad u xooggan uga ganacsanayeen dhaqaalaha oo marmarka baysan lacaga baado tribeela qaadanayeen Boosaaso maanta waxa ay la ciiraysaa wax loogu yeeray ummad dhaqaale iyo sidoo kale amni waxa gabi ahaan meesha laga saaray lacagtii ay qaadanaysay kooxda ISI ayagina hadeerto buuraha ayaa lagu cishiimeynaya waxayna hadeerto gacan ku gabad u yihiin oo ay barayaan naftooda waxayna taagan yihiin isla maalintii moobal qiyaamaha oo kale nafsi taasi waa sida la aaminsan yahay gabi ahaanba waa ta Soomaalidu tiraado qof walba moobal qiyaamihiisa wuxuu dhacaa maalinta naftiisa uu waayay arrintaasi waxay u egtahay mid gabi ahaanba timid soo daahday
waqti weli ay u ekeed in ummadda Soomaaliyeed ay ammaan hesho Puntland waxaa loo arkaa in ay gurigeedii allaheed bahayd deegaanada dadka Soomaaliyeed ee ugu dhaqaalaha roon ay joogeen marka la qiimeeyo isla markaana loo koor galo ummadda Soomaaliyeed deegaanada Puntland waxaa loo yaqaan inay yihiin kuwa ay ku dhaqan yihiin dadka loo yaqaan middle class-ka ee ugu badan dadka taasoo ka dhigan in ay weligoodii allahoodba u baahnaayeen maamul wanaag waa shacab aad u ogol dawladnimada isxukumista iyo sidoo kale ismaqalista wadad wadaniyada iyo sidoo kale dawladnimada aad u jecel waxa ay leeyihiin deegaano iyo taariikho dhinaca ilbaxnimada oo la yaab leh taasoo gabi ahaanba ka dhigtay in ay marba qofkii meesha yimaada sidoo doonaba uu u maamulo xataa aan isqabqabsi badani dhicin inkastoo mararka qaarkood dhowr xurgufooyin ay soo dhaxmareen inta badanna ay kaga socotay dhinaca magaalada Muqdisho oo mar nin Muqdisho u hanqal taagay iyo qolo Muqdisho laga soo hubeeyo baa laga yaabaa inay isku xagaga jireen ilaa iyo jaamacad haatan Puntland waxay ku dhawaaqday qorshe la yaab leh oo Boosaaso lagu hagaajinayo saddex arrimood oo Boosaaso uu ka sheegay wasiirka maaliyaddu haddii ay filaan waxaa loo arki doonaa in Boosaaso ay noqon doonto magaalada ugu dhaqaalaha badan ee Soomaaliya oo dhan wadooyinka 31 haddii la meel mariyo taasoo bilicda magaalada iyo isku socodka yaraynta saxmadda ama jaamka wax loo yaqaano iyo fiilada baabuurta kor qaadi doonta isla markaana ka dhigi doonta magaalada meel ay dadka oo dhan isku wada xidho laba bilicda magaalada iyo qurxinteeda oo inta badan lagu canaanto in ay dawladda iyo shacabka labaduba ay ka gaabiyeen inay dhireeyaan magaalada si aad u xoogan cimiladeeda adag si ay la tacaamusho la beero dhir ta saddexaadi waa waxa loo yaqaan qorsheynta magaalada ama town planning in jidadka la furo magaalada si aad u xoogan looga dhigo goobo cagaf la geliyo deegaankaas oo dhan inkastoo bariyo ugu dambeeyay dhan isweydiinay halkee ay ka timid dhaqaalaha la doonayo 31 wado oo noqonaysa tan intii Soomaaliya xornimada qaadatay markii ugu horeysay ee magaalo intaas laga fuliyo hal magaalo baa laga hadlayaa 31 laami hal mar oo ka dhigan ilaa iyo 59 kilomitir haddana maamulka Puntland waxa uu sheegay in ay tani tahay isku tashi waxay sheegeen in dhaqaalaha ay bixinayaan xukuumadda iyo ganacsatada halka shaqadana ay qabanayaan waxay ugu yeedheen injineerada localka ee dalka u dhashay ee deegaanada ka soo jeeda kuwaasoo ayaguna waqtigoodana qayb ka horaya tani haddii ay sidaas xaqiiq tahay oo aysan cid kale ku dhex jirin waa isku tashigii ugu ballaadhnaa tani iyo intii dawladii militariga ahayd ee iyadu ka shaqay jirtay dhismaha isku tashiga iyo iska wax u qabsado ay wadanka ka baxday waa qorshe la yaab leh waana mid diido gelinaya shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa arrin muujinaysa in dadku ay isku tashan karaan si aad u xoogan u sameeyaan karaan iyagoo aan cidnaba raqbadooda u dhiiban taas walaw dad badan wali ay shaki ka muujinayaan danaha dalalka qaarkood ay kala yihiin dagaalka calmiskaad haddana tani waa mid kale oo diilada kor u soo celin karta oo ah Soomaalidu inay dad isku filan yihiin reer Puntland waxaa lagu ogyahay inay yihiin dad dhaqaale ahaan aad u ladan qurba joog iyo guda joogtoodina weligoodii allahoodba ay tunweyn jeeb weyn lahaayeen gobolka bariya Boosaasana waxa ay leeyihiin saddex arrimood aan cidiro ku gaadhin waata koobaad ilbaxnimo soo jireena oo kumanaan sana taasoo ka dhigan in deegaankan uu ka mid yahay kuwa ugu facaweyn uguna markaasi bilicsan ee deegaanka ilbaxnimadaasina ay qayb ka ciyaarayso talabaad oo ah in ay xadaariyeen dhinaca ganacsiga ku wanaagsan ee yihiin inay leeyihiin jeeb weyn aad u xoogan oo boqolaal sanadood ganacsiga ku dhex jiray kuwaasoo haddii ay quuraan dhaqaalaha ka soo dhalaali kara iska wax u qabso ta saddexaadi waxa weeye khayraadka deegaanka ka buuxa oo haddii dadka Soomaaliyeed ay si aad u fiican loogu maamulo ay ka wada dhargi karaan ka wada noolaa karaan xataa maaha kaliya reer bari ee waxaan ka hadlanaa dhulka Soomaaliyeed oo dhan oo xaq u wada leh inay khayraadka wadaagaan maadaama dalka la wada leeyahay lana wada difaacdo marar badan inkastoo siyaasadii guud ee dalka isku heelahay ee Muqdisho iyo federaalku ay qaloocatay si aad u xoogan loola habaabay lana aaminsan yahay inay waxyeello aad u xoogan gaarsiisay wadajirka ummadda Soomaaliyeed haddana dad badan waxay rajo ka qabaan in haddii ay doorasho qabsoonto sanad kadib dalka Soomaaliya oo uu ku soo baxo hogaamiye ugu yaraan isfahansiin kara Soomaalida waxa ay wada leedahayna u wada ititibi kara intaasna lagu sii sugi karo waxa Boosaaso ka socda Boosaaso maanta waxa ay ahaanba soo jiidatay indhaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan kaliya maaha in reer Puntland ay cadaadiyeen kooxdii wax iska caabinta isku dayday laakiin se dhulka lala jaray oo hadeerta u eeg in 80% laga guuleystay sida ay maamulku sheegayaan sidoo kale waxa laga qaba rajo aad u xoogan in xeebaha dhulka aadka oo qurux badan dhulka istiraatiijiga ah khayraadka deegaanada gobolka bari ka buuxa iyo sidoo kale in ay Boosaaso weligeed iyo allaheedba ay ahayd hooyo Soomaaliyeed mar kale loo cugo